يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا. intaa markaanu sameyno waxaa intaa inoogu xigayaa sidee ayaynu jadwalkan aynu sameysanay aynu meesha uga saari karnaa, yacni tablekan meesha inoo yaala gebi ahaantiiba sabeen meesha uga saari karnaa ee aynu delete garan karnaa. ugu horreynta waxaad sameynaysaa tableka ayaad meel kamida ku dhufanaysaa, kabacdi table toolskaad iman waxaad ka dooranaysaa taabka loo yaqaano layout, waxaanu ka dooranaynaa delete, kabacdi delete table. marka tablekeeni meesha sidaasi ayaa uu ka baxaya. haddii aynu soo celinaynana waxaynu taabanaa control plus z, sidaas ayay noogu soo noqonayaa tablekeeni. waayahay waxaynu rabnaa tusaale ahaan inaynu isku furno imika khaanadahan saddexdaa magac baynu doonayna inaynu isku furno. waxaynu sameynaynaa hab aynu isugu furayno. marka ugu horeysa iyagaad soo highlight garanaysaa kuwa doonaysa inaad isku furto, kabacdi layoutka kaalay waxaad halkan ka doorataa groupkan merge cells ka dooro sida inoo muuqata halka. waxaa isku furmay saddexdii column ee meesha ku yaalay ayaa isku furmay. marka waxay isku noqdeen hal column ayay isku noqdeen. saad aragtaan saddexdii magac ee meesha ku kala yaala waxay noqdeen hal mid oo isku jira oo isku mid ah ay noqdeen. haddii aynu rabnay columnada laftooda inaynu isku furnay iyagana waxaynu sameyn karnaa iyagana soo highlight garanaynaa, kabacdi waxaynu tegaynaa halkan layout merge cells baan leenahay isku fur, yacni kuwan aanu highlight garanay isku fur. marka hoos modiirka la dejini qoraalka hoos ayuu iska gelayaa oo taas waa jirtaa. marka ugu horeysa tableka kala haya laakiin qoraalka imikasi hoostu iska gelayaa waa caadi. marka saas ayaad sameynaysaa haddii aan la yiraahdo qoraalkan, saas ayaad sameynaysaa haddii aan la yiraahdo columnkan. sidoo kale haddii aad hal row aad u furaysid hal row aan iraahdo hal khaanad kale u furaysid waxaad taabanaysaa labada khaanadood isku furaysid baad doorani, kabacdina waxaad tegi doontaa halkii unbaad tegi oo saasaad si ugu furay. haddii aad rabto inaad laba taagan isku furto waxaad taabanaysaa halkan iyagan baad highlight garanaysaa, kabacdi merge cells baad leedahay iyaga isku furmay. marka khaanad weyn bay noqonaysaa. saas ayaanay u samaysnaanaysaa. waxaanu sameynaynaa columnada aynu sameysan doono haddii aan la yiraahdo ayaynu imika dheerarkooga dhaadheereynaynaa. marka ugu horeysa table baynu soo sameysanaynaa. habkan laftiisa waad u sameyn kartaa tableka. habkan waa caadi inaad tablekaaga aad usoo qaabaysato aad usoo doorato, yacni marka ugu horeysa waxaad dooranaysaa tablekaagu imisa khaanadood, yacni 3 saasa iyo 2 sidan ah hadba intaad doonaysid maxaad ka select garaysanaysaa. sida inoo muuqata hadda tablekeeni wuu gaaban yahay waa uu yar yahay. tableka aynu sameysanay sida inoo muuqata aad buu u gaaban yahay waana uu yar yahay. waxaynu rabnaa inaynu heightka kor u qaadno. khaanada ugu horeysa ayaynu joogno aynu ku qornay tusaale ahaan magac baynu ku qoraynaa, magacaas oo kale aynu ku qornay.
ugu horeyntii waxaad dooranaysaa column-ka aad u baahan tahay in aad wax ka beddeshid ayaad marka ugu horeysa mouse-kaaga sii dhex dhiganaysaa, kabacdi halkan layout baad tegaysaa, waxaanad ka dooran doontaa halkay ku qoran tahay properties. Properties markaad timaado waxaad kasii dooranaysaa tab-ka loo yaqaano column, halkan ayaa aad ka beddeli doontaa height-ka iyo weliba row-ga aynu dhigan doono isagana. Marka halkan waad beddeli kartaa, percentage baad ka dhigi kartaa, 7%, halkan centimeter aad ka dhigi kartaa. Marka kii aad rabto ka dhigi, kabacdi okay baad leedahay. Marka sidaynu aragnay iminka waxaa aad u balaadhay ballaca waan ujeeday markii height-ka mu ahayn width-kan ujeeday, width-kii baa aad u balaadhay oo ballacii baa dheeraaday. yacni column-ku wuxuu qaataa width amase ballac buu yeelanayaa halka row-ga uu height-ka ka yeelanayo. Marka row-ga height-ka qaadan doona haddii aad yiraahdo. Marka iminka wuu ka weyn yahay kuwan kale markaad u fiirsatid, kuwan kale aad ayay uga yaryar yihiin markaad u fiirsatid. sidaynu dhahaynaba ku aragno aad ayay uga yaryar yihiin. Casharka inta inoogu xiga waxuu noqonayaa sida loo weyneeyo row-ga height-kiisa ama dhererka jiiftaha. Marka kaad doonaysid baad mouse-ka dhex dhiganaysaa ama si aad sii dooranaysaa, kabacdi properties baad tegi, row baad ka dooranaysaa iminka. Marka halkan baad ka maxaan ku rahday beddelaysaa oo aad ka turkinaysaa. halkan iyadana exactly at least labadaba waad kala isticmaali kartaa. marka kaad rabtid baad isticmaali doontaa inta la yiraahdo. iminka siday noo muuqataa midkaynu isticmaalnay aad ayaa ugu weyn yahay, yacni marka kuwii hore default-ka ahaa loo eego aad ayaa uga weyn yahay. marka halkaas ayaad ka waaweyneyn kartaa, hadhowtana kana yaryarayn kartaa. qaybta koobaad ee casharkeena halkan inoogu joogto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.